laakiin waxaynu soo galnay xaafado quburo haddana xaafada oo dadku ay dhex joogaan shaaha lagu cabayo caadida loogu sheekaysanayo shiishad lagu cabayo. Assalaamu calaykum asxaabta, waxaan joognaa magaalada Xabaalaha ee ku taala dalka Masar. waxa weeyaan goobtani waa goob dalxiis, waxa weeyaan magaalo dhan oo sideedaba wada xabaalaha. marka xabaalahan dad baa ku dhex nool, xaafadaha ku dhex yaala, sidoo kalena waxa lagu cabaa shiishada. filmaan badanna waa lagu matalay wama adraaka ma magaalada Xabaalaha. guryahan iga dambeeyad arkayso dhan guryo caadi maaha, waa guryo xabaala ah. marka insha Allah maanta waxaynu wax ka ogaan doonaa magaaladan Xabaalaha ah. ila socda asxaab kale la muuqaalka way igula weheleysa. waan sugi kari laayahay intan xabaalahan dhex galayno aan si fiican ugu ogaado. marka imika waa anagan xaafadii ama magaaladii soo dhex galnay. aad u weyn tahay meeshu. xaafadu waa xaafad qadiimi weeye oo maanta waxa weeyaan asxaab kale ila socota iyaga iskiin bari doona. magacaygu waa Sigriya. magacaygu soo dhawaada asxaabay. magacaygu waa Nasruddin Ismaaciil. Nasruddin. magacaygu waa Cabdirasaaq. waa Cabdirasaaq oo reerkiisa wad garanaysaa. ninkan un baa rabca labada kale waxa weeyaan reerkiisa. marka xilli waxaan nimid cadceedu ay sii dhacayso waa 5tii barkii way dhaaftaan filaya. marka meeshan way halis badan tahay habeenkii laga yaabo inay ku jiraan. marka halkan u kacnaa xagaabino kay Sakariyo صح habeenkii aynu lugeynay aan jimicsan nima xasuusta aad iyo aad waanagii qaybta xaafadan way dhex marnay aad iyo aad maxaad ku aragtay habeenkaas niyo horta waxaan soo xageena inta badan xabaalaha de lama tago ilaa qof dhinta mooyaan. laakiin waxaynu soo galnay xaafado quburo haddana xaafada oo dadku ay dhex joogaan shaaha lagu cabayo caadida loogu sheekaysanayo shiishad lagu cabayo. marka waxyaabo la yaab badan aan ku arkay meeshan waxaas ka mid ah sax. okay Sakariyo maasan yahay halkan baan tusayaa imika. marka waxa weeyaan jamaaca ikhwa islaamiya ayaa ku aasan waa 1951 weeyaan taariikhda ku qoran. marka xabaal kasta waxa ku qoran cid ku aasan haddii ay family tahay taayira dhishno taasa furan. marka halkan kale waa xabaal weeyaan. marka cid ku aasanna xagga bay ku qoran tahay بسم الله إن المتقين في جنات ونهر. وحوين دكتور باكو آسن إبراهيم جمعة ليرا. يا إلهي مركب الوين كل حوريق دونا. هل كاين كشاب الوعبية وكويل بهالك فدية أنا كسالي في الموية. بعد دقيقة يسكر قناة. دقيقة في بنية. marka insha Allah horaan socon doona meel waxa jirta iyadana lagu iibiyo falaawarada qofkii xabaalaha soo boqonaya lacala oo iyada ay tusi doona insha Allah. jacaylada qudhooda way ka qayb qaataan. marka ma xabaasha la dul dhigay marka falaawarada ha xabaasha la dul dhigay waa aaska cusub talo wallahi niyo waxaan u malanayaa xabaashan baa lagu soo boqdaa ama mid ha dhintaan noqdo mid bar hore dhintaan noqdo lagu iibinayaa horteeda lagu iibinayaa. marka ano xabaalahan la garan waayay ma cid ku aasan xilliga taariikhda lagu aasay ninka 2000 kii waa lagu aasay mugti ya u sheeg sax u dhig misbah u dhig xagana waxa ku aasan Ali Khalil. marka waxa weeyaan xabaalaha halkan diir baa lagu xiraa xabaal kasta. marka guriga moodisa habeenkii ugu horeysay aan arkaynay xaafadayna dhex socdaan moodinay. marka dad baa dhex fadhiyay oo meel lagu shaaheynay iyo waxba lahayd dhinaca shayga xitaa meesha weyn tahay. marka mar dambe baan akhrinay bidaan wana hada waxa ku qoran waxay mafham baa ku qoran xabaalaha guriyaha. marka waxa weeyaan waa meel loo soo dalxiiso oo YouTube-ka dad ku qortaan Dead City Qaahiro way idin soo baxaysaa. marka dad cadaan ku arkay marka qaar iyagoo jooga. marka meelahan dhan gawaari waa markay weeyaan home.
ما هي لكن البابنا ولا حدا ورميشاني waxay leegtahay xaafad Hargeysa kamid yeah quburahani waxay leeyihiin shan xaafadood Hargeysa kamid waxay ka soo bilaamayaan dhinaca suuqa u dhow marka waa inaga dhaxsan qaahira meelo badan oo wax jirta loo dalxiis tagaa jirta marka insha Allah goobahana waxa weeyaan muuqaalo waa ka soo socdaan marka halkan maanta ka bilowday muuqaalkii koobaad meesha isbitaal meesha xagaa kale إني صاحب مرة ما نسى وين مرة ما نسى ميل قدر ما نيما حوالي اسبتالك isbitaalka ما يسولو كذا isbitaal mi isbitaal soo kaadayna isbitaal riyaas iskada soo jeedaa qof halkaas ku rawaxaya marka balkan la keenay marka insha Allah qaahira bariyahan oo joognaa insha Allah muuqaalo kale waan soo gelin doonaa oo goobaha dalxiiska ah waxa jira goobo badan oo aanay muxuu ahaayay dadka youtuberada ay soo duubeen magaalada qaahira gaar ahaan iyo magaalada Iskandariya oo kale marka waxa weeyaan wadankan waxa weeyaan wadan dalxiis ka waran Iskariyo adaa ku soo noqonaya fikirkaad ka haysatay dalka Masar iyo marka timid farqiga u dhaxeeya qaahiran iyo horta markii hore waxaan u haystay meel waxa weeyaan Hargeysa intay doonto dhaanto oo heer caalami oo waxaan ku ri garanaysa markaan imina waxaan ogaaday macnaha inaanay wax farqiya iyo Hargeysa u dhaxayn laakiin waxa u dhaxeeyo kaliya waxa weeyaan waa magaalo qadiimiya dawladna leh halkaan waa xamaamkii iyo eeygan ma cunin xamaam waxaan mala eeyba ma hawada cad kale ya wada u ilaalinaya waxaan anagu waxaan arkay bisadii ay iskorsan miyaad arag tii ilaalinaya wala yaaba marka waxa weeyaan meeshan waa xabaalo madow marka eeygan yar baa la socday Shimbiraan meeshan de Shimbiraan aad baa loo cunaa ya أنا حقنا ويدولي شري ما تدولي معايا وانت وسع عنا يا waxay dhahan bad waxaas magaceedu ma badda la ilaa moogto والله waxa arkaysaa dukaan dhan oo baashan iibinaya waxa oranaysaa iiriire isla markaaba gam baa ugu riday war ma aabo kiilaha lagu iibiyaa meesha wala cunaa kiilaha lagu cunaa macna meesha wallahi adu arkaya ayuu muxuu ahaayay ay gogoynaya kabacdina waa uu ku bacaynaya baasha wada baalata moogto wada baalata ya bugeedek waa lagu haleedahay lagu hagalaay ay geeru ilaalinaya no ruweeg yaa malaha waa حبيبي يا صديقي marka waxa weeyaan meesha waxa weeyaan meel weyn xaafada xagan waa arkaysan shimbiraha meesha lagu dhaqayo shimbiraha sida sheegay waa guri xaafad waay dad degan sawir meena insha Allah marka baaladii marka sidaa arkaysaana iga dambaysa meesha dad baa degan xaafadaha ayaa ku nool meelaha qaar weliba halkan qaybtan aan joogno dad badan maanu arag dad badan meel aan tagnay maalin hore caadi waxay ahayd meel shishad xagga lagu cabay ha xagga dalka Masar waxaan kula yaabay meel kasta shishad baa lagu cabay shishada waxa weyn baashan dheer booq laga siiyo magaranaysa marka baashaasi waxay ugu jirtaa meeshii qaadka halkiina qaad baa loo fadhiin jiray soo booska qaadka ku jirta booska qaadka ku jira lagu baxdaa shirka jil Allah كل كاستمر عارف بعض مركز شدة العبية هبيني مالين مركز شدة العبية هبيني مالين شدة العبية shiishadan waxay ku jirtaa barta qaadku inoogu jiro odayaal waaweyn oo waxaan ku wuri daawayaashana lag badan kasta shishad cabiye marka odayaashaasi hadday odayaal arki lahaayeen reer Hargeysa oo qaad cunaya way la mustaacabi lahaayeen wallahi waa fariistaano kuweenna waxa la yaabi lahaayeen odayaasha waaweyn qaadka cunaya waxa laga yaabaa islaan iyo nin isqabo maahan isna waa xaafad islaan iyo agaas waa xaafad kale macnaheedu ugu xiran moogta dhinaca
halkaasna waa xaafad kale marka anagu meesha hore umaanu sii gelin maadaama habeenkii soo dhow yahay maqribkii soo dhow yahay waxaa laga yaabaa in aan dad abujariibin afka ka galno aad iyo aad magaaladiina anigu qariib baan ku nahay marka dharkoogiina waa ku wadhay weliba dadkan lama yaabayaan dadkan meesha socda waayo goobtan waxa weeyaan goob dalxiis weeyaan intaanan imanna waxaan ka soo baadhay youtube-kan ka soo baadhay dhar city waxa weeyaan magaalada dhimatay dhimashada waxaas marka aniga maanta imid anigoo hore usoo arkay internetka ka soo daawaday muuqaalo laga duubay idinkuna waad ka baari kartaan halkan qoys baa ku aasan halkan qoys baa ku aasan madfan caaila abu sitain marka qabri kastaba waxaa laga yaabaa inay ku aasan yihiin 5 qof 6 qof qoys dhan inay ku aasan yihiin maxaa leedahay hore maxaa leedahay meesha waa la yaab waxba lagama odhan kartaa ya meesha waxba lagama odhan karo waa la yaab cabsa ka waran magaaladan xabaalaha wallaahi horta magaaladan jawigeedu waa hay ma garanaysaa horta meeshan oo kale weligay ma arag haddii alla ku idmaayo horta xabaalihii waddanka iyo xabaalaha halkan wax fara badan may kala duwan yihiin sidaa laajligeed waxaad moodaa in meeshan ay in fara badan waxa weeye dheer tahay waddanka xabaalihiisii oo kale la ilaaliyey dhaqaale lagu bixiyey dhir lagu beeray haddii alla ku idmaayo ma garanaysaa waqti la geliyey halka waddankeenna qabuuraha qaar xitaa waddooyin laga dhigo la iska dhex maro marka halkan waddooyin la maro luuqluuqyo ma garanaysaa dee waa la ilaalinayaa insha allah waxa weeye dadka waddanka lahaa waddankooda way ka shaqaysteen xerti way yaabin feedback dambe marka la soo celiyo waxa idin soo sawiraynaa oo idin soo duubi doonaa insha Allah baarkinadii qaybihii falaawarada wadooyinkii waaweynaa hayga laga soo gelayay insha Allah dhakhtarkii markuu qof ku rabo waxa laga soo qaadayay ku dhawaa meesha meelaha goobaha sharaabka idaacado badan baa idin soo wari doonaa insha Allah kaamirooyinkan la arko kulli waa ku yarahay idaacadaydani waa iikow maanta way soo qaldeen waddankana waa ku cusubahay asxaabay feedbackina suginaa insha Allah waxa kaloo la yaabay sida wadooyinka loogu sameeyay xabaalaha space-ka loo sameeyay xabaal iska xidhan ma jirto xagga ma ka laabi kartaa xagga ka laabi kartaa dhinacaas oo soo kartaa master plan-kii baa loo sameeyay xagga mid waa mooto soo wata wow gaari baa ka yaala xaafado caadi ah laakiin wadooyinka hayga baa u timiraysay asxaabta markaa muuqaalka intaas ku joojin doonaa insha Allah waa inoo iyo muuqaalka xiga magaalada qaahiro iyo dalka Masar baan ku dalxiis doonaa meelo badan oo dadku aydan tusin baan insha Allah in soo doonaa falilahi alxamd assalaamu calaykum